السلام عليكم. سوري هذا صاحبيال waxaan ahay Ibrahim Adam. maanta waxaan ka hadlaynaa qiimaha nafta. yani in naftaada aad u yeeshid qiimo oo aad ogaatid ama aad garatid qiimaha naftaada ay leedahay. markii laga hadlaayo qiimaha nafta aniga aad ayaan u jeclahay. yani ilaalinta qiimaha naftayda waa waxa ugu horeeya ee aan siiyo ahmiyada iyo priority-ga. si aan u ilaaliyo qiimaha naftayda waxaan u tirtiri karaa ama aan u baabi'in karaa wax walba oo aan u arko in uu qiimaha naftayda hoos u dhigayo. marka waa muhiim in aad ilaaliso qiimaha naftaada iyo sharaftaada. shakhsi kasta waxa uu leeyahay qiimo, naftiisana qiimo ay leedahay. ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaaba karaameeyay bani aadamka oo qiimo u yeelay. marka waa in aad ilaashataa qiimigaaga ama qiimahaaga. muuqaalkan waxaan kugula wadaagi doonaa marka waxyaalo laga yaabo in aad samayso balse aadan adiga fahansanin oo haddana qiimahaaga hoos u dhigayo. waxaad u baahan tahay in aad joojiso arrimahan. marka waxaa jiro inta badan dad sameeyo marka arrimahan aan kula wadaagi doono. waa muhiim in aad ogaataa arrinkan aan kula wadaagi doono. midda u dambaysa waa mid inta badan dadka ay sameeyaan ee la dhammayso muuqaalka si aad u ogaato arrintaasi. sidoo kale waxaan kaa codsanayaa inaad kanaalka kusoo biirto ama ugu yaraan aad hal qof la wadaagto kanaalka. mahadsanid. ugu horeyn, respect yourself. xishmee naftaada waa inaad ka dhigtaa number 1. waa inaad balamaha naftaada aad ka qaaday aad oofisaa. waxyaalaha naftaada aad u sheegtay inaad u samayn doonto oo haddana u wanaagsan waa inaad u samaysaa. marka aad adiga naftaada qiimo u yeesho oo aad xishmayso ayay dadka kalena qiimahaaga ogaanayaan oo ay ku siinayaan respectiga aad u baahan tahay. marka first thing first, respect yourself. midda labaad waxay noqonaysaa respect others on their own title. ku xishmee dadka kale heerkooda. markii aad dadka kaleeto u ogolaato qiimahooda adigana waxay ku ogolaanayaan qiimahaaga. marka sii qiimahooda. qof kastana heerka uu yahay ku qiimee. ha siin in ka badan inta uu u qalmo qofka. yani marar badanna waad maqashaan hadalkaas, qofna ha siin qiimo in ka badan inta uu qalmo. Number 3 is you have to stop talking too much. jooji hadalka badan. firi, haddii aad noqoto qof war badan ama hadal badan oo doonayo maanta dhan inuu hadlo, yani qofku dhageysanayo ma lahan. qofka ku dhageysanayay waxaa ka dhammaanayo ama aad ka dhammaynaysaa yani dulqaadka. qofku ku dhibsanaya. marka haddii aad hadasho intii loo baahnaa in ka badan, hadalkaaga ma yeelanayo qiimo, adigana ma yeelanaysid qiimo. marka hadalkaaga ha ahaado mid kooban oo haddana micno ku salaysan, tayana leh. tusaale, waxaad ka qayb gashay event ama madal, waxaana lagu siiyey soo jeedin ama hadalkaaga yuusan badan. marka ha noqdo hadal kooban oo micno ku fadhiyo, waxna laga faa'iidayo oo muhiim ah oona la isweydiiyo hadhowti. laakiin hadal badan haddaad samaysid, yani qiimo ma yeelanay hadalkaaga, adi qiimo ma yeelanaysid. yani hadhowni waa lagu nacaya. hadhowni waxaa imaanaysa in lagu naco, inaan macnaha fursadba lagu siinin oo la yidhahdo qofkan qof hadal badane hanagu dhibin mayga. ama for example, haddii lagu dhiibo xataa dadka ku dhageysanaya ku yaqaano waxay dhahayaan hadhowti warkan ku hadal badan waaye, bal laguma dhageysanayo, waa lagaa mashquulaya. mafahamta? jooji hadalka badan, instead iska aamus. midda afraad waxay noqonaysaa jooji isku dayga ah in aad qanciso, raalina geliso dadka kale. si fiican ii dhegeyso. bani aadamka ilaahay ayaa qancin waayey, ma adaa qancinayo? marka waa maya. wax kasta oo aad samayso oo wanaagsan wax unbay ka sheegayaan. marka lagama yaabo in aad qanciso. sidoo kale wax kasta oo aad dhahdo ha isku dayin inaad raaligelin ka bixiso. dabcan way wanaagsan tahay inaad qofka raaligeliso haddii aad asaga si personal wax uga hadlaysay, balse wax aad samaysay ama aad dhahday oo adigana kula saxan oo aad u aragto wax saxan, ma ahan in aad qof kale oo wixii aad samaysay ama aad dhahday ama aad sheegtay u arka wax qaldan in aad raaligeliso. muhiim maahan waxaasi, iska ilow. marka jooji isku dayga ah raaligelinta iyo qancinta shakhsi kasto. midda shanaad oo qiimahaaga hoos u dhigayso oo ku liidaysa waxay noqonaysaa you have to stop attending every occasion. jooji ka qaybgalka munaasabad kasto ama joogidda goob kasta oo la iskugu yimaado. ka taxadar midaan, waa in meelaha qaar ee lagugu casuumaya xitaa aad ka cudur daarataa. haddii xitaa aad firaaqo tahay, waa in aad ka cudur daarataa oo aad muujisaa in aad mashquulsan tahay oo aadan ka soo qaybgali karin munaasabadaas. howl kale oo muhiim ku ahna aad qaban rabto. firi, waa muhiim inaad ka qayb gashaa munaasabadaha adiga danta kugu jirto, balse munaasabad aysan adiga dan kugu jirin waa inaad iska diidaa. marka noqo qof aan la heli karin mar kasto. taasi waxay naftaada u yeelaysaa qiimo gaar ah. tusaale, koox ka mid ah tiimkaaga ayaa waxay rabaan in ay kugu casuumaan event ama howl ayay rabaan inay qabsadaan ama meel ayay rabaan in ay aadaan. markay isku yimaadaan oo adiga ay ku soo wacayaan, yani ha isku sheegaan, ha isdhahaan tusaale, yani ninkaasi mashquulkiisa badan ama gabadhaasi mashquulkeeda badan lama heli karo. marka bal laakiin waa isku dayna bal inay fursad leedahay ama inuu fursad leeyahay. waan waxayna bal waanu sheegaynaa inuu ka soo qayb galo eventiga ama inuu meeshaasi nala aado.
يعني waxay ka dhigan tahay waxa tustay asxaabtaada qiimahaaga iyo in aadan markasto available ahayn. mid lixaad, stop making too much jokes. jooji sameynta waxyaalaha qosolka ah markasto. haddii aad isku daydo in aad dadka markasta ka qosliso waxaad luminaysaa qiimahaaga. haddii aad noqoto qof markasto rabo in lagu qoslo waxa uu sheegayo, yani waxaad luminaysaa qiimahaaga. soomadan arkin dadka ma aragtay comedianka ama dadka ka qosliyo, mostly dadkaasi waxa uu la qadariya ama la qiimeeya intaas ay dadka ka qoslinayaan. qofkan markuu dhameeyo intuu dadka ka qoslinayay hadhooti yani qiimo looma yeelayo. haddii ma aragtay laga hadlayo wax muhiim ah xataa lama soo xasuusanayo. qofkan lama soo xasuusanayo, tala lama wadaagayo, lama dhahayo kalibal arin baan maanta ka hadli rabnaaye aan ma aragtay nagala qayb gashid, lama dhahayo. kaliya waxa la soo xasuustaa markii la rabo in la qoslo, kaliya waxa la soo xasuustaa markii la rabo in wax funny ah la sameeyo, laakiin wax muhiim ah lama wacdo. just waa qof iska malaayacni ah. marka jooji isku dayga ah ka qoslinta dadka markasta. mid lixaad waxay noqonaysaa, you have to stop calling someone more than one time or two times. jooji wicida qof hal mar ka badan ama laba mar ka badan, sababtoo ah maanta qof kasto device-kiisa gacanta ayuu ku haystaa. haddii xitaa qofkaasi uu jiifo ama hawl muhiima uu ku jiro, marka ugu horeysa oo qofkaasi urdada uu jiifay uu ka soo kaco ama hawshii uu hayo uu dhammeeyo, waxa ugu horeeya uu qabsanayo ama uu soo qaadayo waa device-ka ama telefonkiisa. markii haddii aad wacday laba mar ka badan, waxaa qasaba inuu arkayo message call-kaagii. so why aad u wacaysaa marka 10 to 20 times? hawl kama dhacdo miya adiga? xitaa haddii aad arin muhiima qofkaasi ka leedahay, يعني wada kala raadi aad ku xalin karto. wada kala raadi hadii ma aragtay laga maarmaan u yahay xataa fariin u reeb. markaasi qofkaasi wuxuu ku soo wacaya asagoo og wixii aad ka rabtay, wixii aad u wacaysay asagoo og ayuu ka daba imaanaya. si toosa ayuu markaasi kugu sheegaya dantii aad ka leeyahay. laakiin in aad wacdid 10 to 20 times, like how come like aad intaas oo dhan u sameyn kartaa? wicin qofna laba mar ka badan, qiimahaaga ayaad hoos ugu dhigaysaa midaas. fiiri, waxa jiro mararka qaar dad ma aragtay markay ku soo wacaan aad isleedahay yani qofkan muxuu ku soo wacaya, hada muxuu ku sheegaya, ama markuu marar badan ku soo waxa leedahay bal had qofkan intaan oo mar muxuu ii soo wacay. adigoo arkaayo ayaa mararka qaar laga yaabaa inaad ignore garaysid qofkii ma aragtay aad dadkaas aan sheegayo. yani dad wax qaar waxa jiro aad isleedahay waxna kama faa'iideysid qofkan waay uu ma aragtay ku soo wacaya. yani aad ayaan uga xumahay dadkaas inay midaasi ku dhacdo. waxaana dhihi karaa iyaga ayaa isku soo jiiday oo naftooda u soo jiiday, balse dadka noocaas oo kale ha noqonin. qiimahaaga ayaa hoos u dhacayo, ilaali qiimaha naftaada. marka waxaan muuqaalkan kusoo gabagabeynaynaa ka taqallus arrimahaas. haddii aad samayn jirtay qiimaha naftaada ilaali, waxaa tahay qof aad u qiimo badan. so marka arrimahaasi waa arrimo naftaada hoos u dhigi kara, qiimaha naftaada hoos u dhigi kara. waxaana lagu arki doonaa qof shaqo iyo hawl ayna ka dhicin, qof aanan noloshiisa aanan yani ku mashquulsanin ayay ka dhigaysaa. marka ka taqallus arrimahaas, qiimaha naftaadana ilaali. waxaan ku xasuusinayaa inaad kanaalka ku soo biirto ama ugu yaraan aad hal qof la wadaagto muuqaalkaana like taa ka hilmaamin. assalaamu calaykum.